الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد markuu hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo noo nicmeeyay nicmooyinkiisa aan soo koobi karin rabbi subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ikhwaani maanta waxaa booqasho aan ku imaaday masjid jaamic al-azhar al-qaahira waxaan joogaa maanta masaajidkii weynaa jaamic al-azhar oo cilmiga lagu baran jiray oo culimo badan oo Soomaaliya meeshan wax ku soo barteen oo kamid ah Sheekh Maxamed Macalin Shariif Cabdinuur dad badan oo soo maray oo culimo ah oo jilla ah oo aan soo koobi karin waan ku faraxsanahay maanta inaan imaado masjid jaamic al-azhar si idinka aad u jeedaan masaajidka barxadiisan taaganahay gudahan waan gali doonaa insha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meeshan waxaan joogay anoo arday ah wax ka baran jiray muddo 25 sano ka hor maantana waxaa joogaa aniga oo maanta oo banaanka ka imaaday aan soo booqday jaamic al-azhar aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hal kelima ayaan leeyahay ardayda wax ka barato oo wadanka Masar khaasatan jaamacada al-azhar waxbarashada al-azhar adaa wax isbari karto al-azhar waxa waaye muqarraraadka oo jaamacadaha ayaa lagu akaanin hadda gudaha masaajidka markii aniga aan tagay culimo badan ayaa joog fanni kasta waa la akhriyaa qiraa'adka la akhriyaa axaadiista la akhriyaa siirada la akhriyaa marka si idinka aad u jeedaan dadkan gadaashii ka muuqdo dhan arday waay oo ay u badan yihiin dadkan Aasiyaankan sida Indoneesiyaanka iyo Thailand iyo Malaysiyaanka u badan kulli way wada fadhiyaan hatta quraanka culimo joogto quraanka lagu dul akhriyo qiraa'ad dad quraa'a culimo waaweyn ajoog marka ardayda waxaan leeyahay cilmi aad u timaadeen meeshan bari markii wadanka lagu laabto waxa lagu leeyahay meeqa sano Masar soo joogtay ma lagu dhahay maxaa soo baratay ha lagu leeyahay marka ha laga faa'iideysto fursadan ha laga faa'iideysto ha la wada imaado cilmiga oo sharciga ha la barto Sheekh al-Azhar Maxamed Sayyid Tantawi wuxuu dhihi jiray antum sufara waxaad tiin idinka safiiro waxa waa idinka waxaad tiin dad oo macnaha diinta wakiil ka ah marka qof kasto azhar ah maqaalaadkiis waxa kamid ah Maxamed Sayyid